بهل سوران الجوريري سوران كلا قلا وحان سيري هديرو نفكروا ورتلو صبر كان محطريا مركا هدنا وحان سيري ورملا فيسبوك يبو تسكية بينك هي تسكية ده ما تغاني ده انت شيخ عبد الرشيد صلى صورته هنا دبلا قلت هذا شيخ عبد الرشيد ما نسنغانا يا شيخ واك نصور كيسينا و سوى وضد مرة يروى تقول على صورتها ما قاعد أفوشان وتسكية محبك تشيرين كما انت لو قرحنين وركبوا ولا شيء ناي تسكية كبنت هلا تشوشيو صورنا وحما ما تراه الأصل إنه حلال يا إنه حرام يا مركتاجنا لكن من كوحي نقطي مساجد الصفقة هذه وكتير صور لك قاضية إلهي يرتاجن هذا دقيقة والله صورية قفبة وملك استله وحما صورية ورصورك آخرنا إنه خطر بالنقضة وعبسي أي كشرته أدوكنا وحو ترى غير المايو وحو ترى إنه ودادو هالكاس كاميرا أنت تسلين عتاك تصور قاضتي وحبا ترى مايو بل وحن سلي الصدق قال شيء يو خلاف سي مع الصادقين تاليدي رن إنانو نقنن بيو بدنت مركا وحن دلي إلهي عبسيدي سبدية دينتي إنكو دقن كيدا بدية ضد مسلم وسوتشي هذا ميشان تشوكتان أرور سنادا قال هذا إلهي وحبا إلى قمر راعية وخطره صحابة دي سوهي جروتي تيمي حبشيدا إن متكفنين يسوي موجودين عبيد الله بن جحش عبد الله بن جحش ولالكي عن رجينا يا مو حبيب نكيديها على كل حال نصارى الراعي haddii ba ay suurtagal noqotay rag saxaabo soo hijrooday wax ka finiinaan deeynadu khatar weyn baynu ku jirnaa deeynu dhul gaal iska fadhiisano bariisano khatar weyn baynu ku jirnaa khatartaasi waxay yaraanaysaa sida doctor Ali sheegay haddaynu inagu xagga kala wadno haddaynu inagu dacwadan iyo diintan xambaarno oo wadno wax weyn kuguma aha يعني waxa laga yaabaa inaad tiraahdo aduu ma sheekh baatay dadku sheekha islaamiye bas aan idin sheegaya Dr. Jaafar Idris sheekhan gaboobay Suudaaniga ilaahay caafimaadiyo min sagaashan ka dhaafo culimada waaweyn muslimiinta kamida filosofna ayaa wuxuu yiri wuxuu ka warramaya ducaada dahsoon ee aan cidina ogeyn oo uu leeyahay ducaada dahsoon hal la caawiyo marka laba nin buu ka warramay oo Mareykanka jooga mid wuxuu yiri waa taksiile taksiga wuxuu dadka kaga soo qaadaa airportka magaaladu keena taksigiisa marka cidi soo fuusho ayuu quraan cid macaan u saaraa Mareykanka iyo dadkaas waa dad hadal badan oo warka iskala ka bilaabaya Yurubiyanka مثلا Scandinavian ko kale guriga kugu xiga weliga kula hadlimaya ka ku jira wadada aamusan aan waxba ku darsanin laakiin qoladana af Ingiriisiga ku hadasha wadada aad u furfuran oo dadka iskala qabsada markuu quraan cid macaan saara bay yiraahdaan heestani maxay ahayd isagu su'aasha uu muu rabay inuu la weydiiyo waa cod macaan yeen ninkan heestu qaadayo markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo it's the last revelation from God ووحي يقول بيا السماء كي يماده هل كاسو كبل وضع مركا وركيسه سدادي كنت نقف بكرسي قدام بيا يقول صارنا شهاده وغبط سدادي كنت نقف لح بلاد جدهود نويان ما ها وقت بدن لح بلاد جدهود بسدادي كنت نقف وكرسي قدام بيا تاكسي صارن وشهاده ولا قبي كلاماده وكور رمي وحويان ننسى إسلامي وأنا قون ديني دو بدن لهين مسلمون إيمانكو قالوا إيمانكو كدبيه هاي نمان عربي دو مسلمين ومساجد كنت كدو غير ورياده وردت كاري نارتك وصعداني كالا يراع دتك أنا سوق بنا يدونكو كان دين كانوا وحشيغا مالين با لبا دتك المساجد كشوغا في عربي غنيه قال أيوك حياه يسووا فاتحة ودرك كو آخرين وضد دتك مريا أيو سرتاغا المرة بتاعنا السلام كوحكو قاتو
dee waa bini aadama wax walba oo ku dhaca qaar waxay dhahan war naga bannee iska daaya buu yidhaha isagaa diiday ka yidhaahda islaamku muxuu yahay gacantuu qabtaa wuxuu yidhaha warkaan wuxuu sii sheega dabeetana isagu waddadu ku noqdaa isagu dadkaa waddada maraya ee laga khajilay islaamku qofkaasaad iskala hadli ayuu indha caddays ugu tagaa unoo yidhaahdaa war diinta wax ma ka rabtaa inaad ka ogaato kii yidhaahdaa muxuu yahay gacantuu qabtaayo nin carbeed halkan taagan buu geeyaa wuxuu yidhaahdaa diinta u sharax waxaan uga dan leeyahay qofka bini aadamkii hadduu ku talagalo inuu wax qabto waxbuu qaban karaa laakiin aan run isu sheegnay ma jiraan niyadaa waddankan cid ku timi bal gacanta taag nin markuu waddanka imanaya islahaa dadka aad islaamisid mise waxaynu u badannay nin islahaa cilmi ka qaado jeebabkooda baadho in lacaga ka sii qaado oo ka baacmishtare wax kale inuu soconnay war haddaba tii kalena si ay idinku asaxdo oo iyada lafteeda aan aakhire laydiin weydiinin tanna ku dara dadkan adigu xilku kuma saaro qofku inuu islaamo iyo inaanu islaamin ilaahay baa taa ku shaqo leh adigu inaad u sheegtaa ku saaran hayse odhanin waa lagu diidi iyo waa kan iyo falsafadna uma baahna iyo wax waaweyn oo aad ka warranto uma baahna waan ilaahay cirkan iyo dhulkan baa abuuray baa rasuul soo diray rumee intaasoo adiga kaaga baahan tahay philosophy iyo wax kaloo waaweyn dadku waxay sidhahdaan talo dadku markuu islaamaya maxaa loo sheegaa waxaa loo sheegaa war laa ilaaha illa allah dhibis wax kaloo badan uma baahna ciddii aqbasha ahlan wasahlan gee meelaha islaamka lagu barayo ciddii ku diidda xoolade kumaad lahayna iska dhaaf hadduu ku diido khalaas iska dhaaf adiguna markaa inaad badbaadaabay u badantay oo qof soo islaamo xaqa haleelay hadduu kuu duceeyo oo uu garto ninkii naarta ka badbaadiyay inay tahay ducadiisa in alla ku aqbalaabaaba laga yaaba oo aad kaa ducadiisoo saadiqa ku badbaado marka dee warka intiisii badnayd culammada idiin sheegtay anu waxaan idin leeyahay ilaahay ku xidhnaantiisa badiya baryadiisa badiya cabsidiisa badiya wax kasta oo u baahantihiin isaga albaabkiisa ka raadiya biyadihi lmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay bal wuxuu isku sifeeyeyday waxana anaa haysta wax walbana waan awoodaa alghaniyu alkariimna waan ahay alraxmaan alraxiim ilaah deeqtoon oon waxaan waxba u taraynin naxariis badan karam badan oo deeq badan jawaad ah wax kasta bixiya idan ilaahay baryadiisana badsada cibaadadiisana badsada diintana ka run sheega dee ducadaynu isu ducaynaana waa ilaahay inuu aakhiro meel fiican inugu kulmiyo jannadiisa inuu nagu kulmiyo xisaabta iyo ciqaabka in alla subxaanahu wa tacaala inaga fudaydiyo rabbi kuwa cafiya inuu inagu daro intaa kadib idinkana waa idiin mahadnaqaynaa sidaa noo maamusteen ee noo soo dhiirigeliseen dee kolley qofka halkan fadhiya hadday 4 qof soo hor fadhiisatana waa yara niyad jabaa haddii meesha la soo buuxiyana wallahi halkan kusoo noqnoqoshay leedahay buu yidhaahdaa oo dee wuxuu is idhaahdaa dadku niyadday u dhisayaan idinkuna niyaddaa noo dhisteen imaamka iyo gruubkiisuna waana dejiyeen oo si fiican bay noo dejiyeen safiir xigeenkuna dee wuxuu naga keenayba VIP du naga soo saaro halkii airportku naga soo saaray niman ilma xaaji axmedina madaxay nagu qaadeen oo waana sidaan weli cidi dhulka nama dhigin marka ilaahay waxaan ka baryayaa intiinaba in ilaahay khayr ugu bedelo wixii camale wanaagsan ay geysateenna in ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka wada aqbalo annagana wax yaga inaan ilaahay sumca iyo riyaa ka dhigin ee wuxuu aqbalo annaga ugu baahi badan aqbalaade inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin wax waa la sheegaa laakiin inta ilaahay xaggiisa laga aqbalaa waa inta ahlu taqwa ay sheegaan ee ilaahay inuu naga dhigo kuwa kelmadooda aqbalo صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين